السلام عليكم جايز كسر دوادا برنامج كيني أنا أقول برتين ما نلعب أسبوع ولا بنادين سوق دبنا برنامج كيني ما أنتوا حقوا هذا لنا مقال كينا عصب شن عنا أو حجنا حسوس هذا أما دب أسوع علينا متى هاي قف إلى وشيء دويه أو فرح جورج أما متك جاري إلا هو ما ست هاي قف إلا هو مقاعد قاس كأصحاب تقوليه أو مقاعد ظهر الماما متى هاي قف أو حسوسية سجارك أو نقصامة سدا حافظ عصب هذا أجورك أو كهل ماما haddii aad ka mid tahay asxaabteena ku xiran janaalkeena fadlan subscribe noo saar gambaleelkana saaro mawduuca isleeda uu ku anfaca commentiga noo reeb muuqaalka waxaan idinku soo gudbinaynaa 5 cunooyin oo xoojinaya ama dib u soo celinaya xusuustaada cunada koowaad kaloona cadaha waa wax kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka soo celiyo xusuusiyiisa kaloona cadaha hadii oo lagu kariyo maraq بيعاد دلو كري أو قفك أو استعمال أو عنه وحال ريكوفري داقنايو أما دب أصونا قنايو حسوسيس كلون عدا وحياة وكوكوين وحكمده فيتامينات فربضان سيدا فيتامين سي فيتامين بي 2 ألف إي فيتامينات كلو كوكوين دمان فيتامينات وحيجيرك بن آدم كأنفعيان إنه مسكح هذا ليعامنك كشقايا إنه دب أسوع علي الريكوفري كوسمايو سيدا مسكح هذا حسوسية دب أسوع علي اللي مسكح هذا يكون شقايا إنرجيك ده سوحي كهلسها boqolkiiba 80 waxay ka helayaan waxyaabaha loo yaqaan kaloon cadaha waa kaloonka ugu muhiimsan ee ugu fiican oo recovery ku sameyn kara maskaxdaada number 2 avocado waa nooc kamid ah noocyada proteiniska oo jirka bini'aadamka u baahan yahay waxyaabaha oo dib u soo celinaa waxa kamid ah muscle growth wuxuu kobcinaa murqaha jirka bini'aadamka murqaha markuu kobciyo murqaha iyo xiriirka ka dhaxeeyo سيال عصبي جيرك بنات كوكوية أما nerve systemك وحين سمينا إنه recovery كوسمايو مسكحة energy وباهية سي ودب وسوي عليه حصوصها حاجة قفك هذا استعماله وحيامان لو يقانا سيدا أفوكادو هو كله أفوكادو هذا استعمال شد هذا قدرايو عانو quantity of عانو أما ملكي وحير هذا قدرايو هذا استعمال شد أفوكادو وحو بلا إنه دب وسوي عليه مسكح هذا وحو كسمينا recovery وحان هلسا تمر آد وين على هلا أفوكادو نمبر 3 أكونتا واقيب كترسن بروتينك وحين مهم تهي كوريتانك جيرك بنادنك خاصة وحي كوريسا حمنها أومي مثل جيرك بنادنك سيدا مسكح هذا كله وحين سمينيسا وحي دب أسوع علينيسا تمرتا أما الدفاع مسكح هذا أول ليه سيدا ديعامنك سيدا ديعانك لو يقانا سينافي الفلويد وحي دب وكورينيسا سينافي الفلويدك سينافي الفلويدك وحو كساعدة برين بروتكشن إنه سميه مسكح هذا وحو كإلالنا wax walba oo muqaawama maskaxda ku umaanaysa ama wax walba maskaxda soo weerarso ka ilaalina hadii ay maskaxda ka badbaado wax walba soo weeraray arintaas waxay saali dhiyaamanka maskaxda in u fududaato in recovery ku sameeyaan wax walba oo qofkan xasuusan lahay xasuusta maskaxda waxa kale soo celiyo waxyaabahan oo ka kooban dhiyaamankan oo jirka bini'aadamka fluids soo deeyo si isugu xirmaan dhamaan muscleska isku xirmaan wuxuu bilaabaa maskaxda inuu dib recovery u sameeyo oo xasuusteeda aad soo xasuustid wax alla markaad waxa u baahan a few minutes u baahan wixii aad recovery ugu sameeysid number 4 betraf waa wax kamid ah waxyaabaha proteiniska jirka bini'aadamka loogu talagalay isticmaalo betraf waa nooc ka tirsan waxyaabaha qudaarta anaga aad u isticmaalno waxa loo isticmaali karaa laba nooc inaad cabitaan ka dhigatid inaad ku darsatid qudaarta betrafka faa'iidooyinka ugu weyn oo nooleeyahay waxa kamid ah inuu jirka bini'aadamka soo celiyo sida xididada dhiigga qaado kale inuu stimulationka dhiigga wareegga circulationka oo si wanaagsan jirka u sameeyo wuxuu ka ilaaliyaa wadnaha waxyaabaha problemska ku imaanayo maadaama wadnaha uu difaacayo xiriir ka dhaxeeya wadnaha iyo maskaxda wuxuu sameeynaa cilaaqo oo waxa ka dhaxeynayso si dhiigga circulationka sameynaa si oo jirka bini'aadamka maskaxda u gaaro oo soo laabto hadii dhiigga oo wadnaha ka baxay oo maskaxda gaaro oo circulation systemka oo si sax u shaqeynayo waxa dib u soo noqonaya xasuusta bini'aadamka waxyaabaha aad ku soo celiyo waxa kamid ah dhiigga bini'aadamka oo jirka bini'aadamka qafka oo si sax ah u shaqeeyo hadii dhiigga bini'aadamka jirka bini'aadamka oo collapse ku imaado ama xinjiro haduu ku imaado waxa imaanaysa problem heart problem ama blood pressure ama qafka maskaxda inay xanuunto sida cudurkan typhoid imaado marka betraf wuxuu naga saacidaa inuu ka ilaaliyo dhiig inuu xinjirtu ku bato wuxuuna sameeyaa inuu maskaxda gaarsiiyo nafaqooyinka ay u baahan tahay saas darteed waxay sababay inay maskaxda soo celiso waxyaabaha ama xusuusaha adiga u baahneed inaad dib u soo xasuusto way soo laabanay hadii tusaalooyin lagu soo qaato number 5 liinbalbeelmada waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee vitaminiska jirka bini'aadamka kobcinayo vitaminiska liinbalbeelmada wuxuu ka qayb qaataa
inuu dib u kobciyo hormoneska jirkeena oo ka kooban yahay hormoneska wuxuu ku sameeyaa stimulation hormoneska kicina qaasatan fitamiinaadka hormoneska la shaqeeyo dib u kicina arintaas waxay saalaysaa qofka bini'aadanka haduu HB-giisa hoos jiro kale inuu sar u qaado oo RBCs-ki wixii jirka bini'aadanka garoos ay sameeyaan hadii ay garoos sameeyaan dhiyaamankaas qaar kamid ah waxay gaarayaan maskaxda waxay bilaabeen in activation sameeyso xasuusaadkan aysan hilmaamin hadii wadnaha oo problem ku yimaado maskaxdana saameyn ku leedahay marka balbeelmada waxay soo celinayaan fitamiinaadka activation ku sameeyo memory glandiga active lagu sameeyo qofka wax walbo ama qofka ka hor imaanayo oo muddo kugu dambeeyay 10 sano ka hor kugu dambeeyay waa arkay isla marka maskaxda waxay bilaabay qofka inaad tiraahdo hebel ma tahay adheed waxa arintaas ku sahlayo waxyaabaha cunooyinka isticmaalaysid hadii oo videoga muuqaalkeena ku qanciyay fadlan waxa idinka codsanaynaa inaad subscribe noo dhahdeen muuqaal intaan ka badan idin soo gali doonaa maadaama aan ku jirno barnaamijkeena advantage-ka waana maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh